إلهي نحرس جنة كورابيو كاسي وحوها عبدي كامل عوالي أو كما قديرا النفتي هوري تاريخ دا أمد الصوماليين بالدهبا كجيرا هدين نغطو قوابو هلقن نوالبا ومركا لي برنامجين إني أتكالي سعوتين آيرو تي في أو آينو inta badan idinku soo habnaa waxyaabo badan oo bulshada Soomaaliyeed ka daasoon tahay barnaamijka maanta aanu doonayno inaynu ka hadalno waa barnaamijka taxanaha ah ee aanu ugu magacdarnay guuldarooyinka taariikheed oo in badan horay aad uga durdurateen Airo TV qaybteena guuldarooyinka taariikheed maanta waxaynu kaga hadli doonaa ama ku soo qaadan doonaa xubinayna ugu magacdarnay dagaalkii 77kii dhaxmaray dawladaha Ethiopia iyo Soomaaliya magarbu ahaa mise gartaro barnaamijkeena wuxuu ku qotomaa hawlahaasi iyo arrimo badan oo aynu soo wadno dhammaan daawadayaasha qadarinta leh waxaan mar labaad idinku soo dhaweynaynaa Airo TV meel kasta iyo xilli kasta idin tahay meel kasta oo dunida adacaladeeda ka joogtaan iyo inta imika online-ka ah iyo inta soo geli doonta dhammaantiin inta haddaan kaga gudubno barnaamijkeena wuxuu noqon doonaa 5 qaybood oo musalsal ah oo aan mid walba ku soo qaadan doono waxyaabo muhiim ah inagoo ku wareysan doono saraakiil iyo ciidankii ka qayb galay dagaalkii 77kii kuwaasi oo inta badan ku nool wadamada qurbaha qaarna ay joogaan wadanka gudihiisa in kastoo kuwa wadanka gudihiisa jooga ay naga cudur daarteen in aynan magacooda sheegin waa hagaag inta haddaan kaga gudbo falanqayntaasi hore maxaanu ku doorbidnay inaynu marka hore ka hadalno dagaalkaasi 77kii oo maanta ay ka soo wareegtay muddo ka dhawaad ilaa 50 sano ah waxaan ugu qasbay inaynu ka hadalno sida aynu la socono ummad walba oo dunidan guudkeeda ku nool waxa ay leeyihiin taariikho milgoon oo ay u cugeen ama ay u weelayeen generationada ama facaha dambe oo imanaya dagaalkaasi waxa uu qayb ka ahaa dagaaladii bulshada Soomaaliyeed inta badan ay ku leedeen haddaba qodobada ugu muhiimsan ee aanu cuskanay inaynu dagaalkaasi aynu maanta dib u xusno ayaan soo horeeyaa qodobka koowaad waxa weeyaan waa in aan si sahal loo hilmaamin dadkii Soomaaliyeed ee ku leeday dagaalkaasi ama amba ugu yeeri karo geesiyadii Soomaaliyeed ee ku dhamaaday dagaalka 77kii dhaxmaray labada dawladood wuxuu ahaa dagaal si wada jir ah ama isku duubni loo wada galo kii ugu dambeeyay ee Soomaali soo maray ayuu ahaa dagaal si wada jir iyo isku duubni iyo Soomaalinimo ku dheehan tahay kii ugu dambeeyay ee bulshada Soomaaliyeed soo maro ayuu ahaa waxa uu ahaa lingixii isku hayay ummadda Soomaaliyeed oo furfurmay dagaalkaasi wixii ka dambeeyay lingixi ama lingax ama dasiil ama wax kasta oo ummadda Soomaaliyeed isku hayay wuxuu ahaa wixii dagaalka ka dambeeyay furfurankii ama halkii uu ka soo bilowday in uu inay dhalaasho xanjadii bulshada Soomaaliyeed isku haysay
waxaa kale oo jiro oo isagana aan u cuskanay inuu ahaa ood afadii guulihii isdabajooga ee taariikhaha iyo sooyaalka. ood afada waxaa la yidhahdaa oodda marka moorada la oodo oodda ugu weyn ee albaabka lagu xiro ayaa la yidhahdaa ood afo. marka dagaalkaasi wuxuu ahaa ood afadii ama ooddii ugu weyneed ee guulihii isdabajooga ahaa ee 10 qarni soo socday kii ugu dambeeyey ayuu ahaa. waxaa kale oo aan u cuskanay iyadoo aysan jirin cid si qoto dheer cilmiyeysan xigmadaysan xoog ogaalsan ooga hadasha dagaalkaasi oo weli aynan arag. si cilmiyeysan oo xoog ogaalsan oo maxaa la yidhahdaa oo xigmadaysan oo qoto dheer meel lagaga hadli lahaa iminka maalinka maanta ah maanan arag. dadkii dagaalkaa ka qayb galay, saraakiishii, kuwii joogay, dadkii tabantaabinayay, ardaydii, hooyooyinkii, intaaba meel lagu wareystay oo lagaga hadlay ama lagu beeqaamiyey ama bulshada loogu soo bandhigay weli maynan arag. waxaanu ku dadaalaynaa inaan daha furno in aynu markaasi waraysanno, soo dhoweyno aragtidii dadkii bulshada Soomaaliyeed ee waqtigaa noolaa ama joogay ama saraakiishii ahaa ama kuwaasiba. inta haddaan kaga gudbo aaraarta barnaamijka wuxuu noqon doonaa 5 qaybood oo musalsala. 1 wuxuu noqon doonaa falanqayn iyo faaqidaad wixii dad iyo duunyaba rigaaxmay dagaalkaasi, oon faaqidno oon falanqayn ku samayno wixii halkaa dad iyo duunyaba ku rigaaxmay labada dhanba oo laga ka sheekayno. 2 wuxuu noqon doonaa qodobka labaad ee kaga doodi doono wuxuu yahay awoodihii ishardiyey iyo wadamadii ka qayb galay. awoodihii ishardiyey Ethiopia iyo Soomaaliya barigaas jiray iyo wadamadii ka qayb galay dagaalada, kuwii Afrikaanka ahaa iyo kuwii Carabta ahaa iyo wadamadii reer galbeedka sida Mareykanka iyo Ruushka iyo wadanka loo yaqaan Cuba ama Cuba wadanka la yiraahdo. 3 waxaynu kaga hadli doonaa caalamka maxay ka yiraahdeen dagaalkaasi, yaa guuleystay yaase ku khasaaray, faa'iido ahaan iyo khasaare ahaan dagaalkaasi waxa uu sababay siyaasad ahaan iyo dhaqaale ahaan iyo mustaqbal ahaanba ayaanu kaga hadli doonaa. waxaa kaloo kaga hadli doonaa qodobka 4 maxsuulka wixii ka soo baxay dagaalkaasi iyo saamaynta uu ku yeeshay labada dhanba. dagaalka markuu dhacay maxsuul baa ka soo baxay, maxsuulkaasi saamaynta uu ku yeeshay labada dhan. qodobka 5 ee aan barnaamijkan ku faaqidi doono ama aan kaga hadli doono isna wuxuu noqon doonaa maxaa laga dhaxlay, maxaynu ka baranay dagaalka 77kii, maxaa laga dhaxlay, maxaynu ka baranay wixii dhacay. 5 qaybood ayuu isugu jiri doonaa hadduu Ilaahay yiraahdo barnaamijkan oo noqon doono musalsal socda in muddo ah hadduu Ilaahay yiraahdo. inta haddii aan kaga gudbo qodobka maanta marka aan doonayo inaan isdul taago ee aan si falanqaynsan uga hadlo waxa weeye qodobka ah falanqayn iyo faaqidaad wixii dad iyo duunyaba rigaaxmay ama baaba'ay ama ku dhintay ama ku lagu waayay ayaan rabaa inaan isdul taago. aad baan idin soo dhaweynayaa mar kale. waxaan arkayaa Mukhtaar Cumar oo soo dhaweynayaa, Fawzi sidoo kale, Mr Nuur oo soo dhaweynayaa, Mukhtaar Qarni, asxaabta dhammaan waa idin soo dhaweynayaa. qodobka markaa falanqaynta iyo faaqidaadda wixii dad iyo duunyaba rigaaxmay ayaan doonayaa marka inaan asna mar kale aan maanta aan hoosta ka xariiqo si aynu barnaamijkeena hadba qayb ooga soo qaadano. qodobkaasi intaan u gelin waxaa jira doodo aan dad badan oo Soomaaliyeed waayo arag ah oo dhalinyaro iyo dad scholars oo wax akhriya ama wax qora, dadkii dagaalada ka soo qayb galay, culumadii bariga joogay, dadyo fara badan oo aan wareystay dagaalkaasi sida uu ahaa. dadyoogaasi waxaa ku jira dad Ethiopian ah oo magaalada Addis Ababa, magaalada Nageyle, magaalada Harar, magaalada Jigjiga aan ku wareystay. kuwaasoo dhan baan idin soo hori doonaa insha Allah. intaan markaa wareysiga u gelin maxay ka aaminsan yihiin bulshada Soomaaliyeed guud ahaan dagaalkaasi waxa uu ahaa. Haylawin barnaamijka magaciisu waxa weeye dagaalkii 77 ma gar buu ahaa mise gardarro. marka dadka Soomaaliyeed waxay ka aaminsan yihiin ayaan iyadana wixii aan soo xuuraamiyey ayaan ka soo qoray ee isu wada geeyay ayaan qodobeeyay. qodobadaas aan idin soo gudbinayaa. 1 dadka Soomaaliyeed darba waxay qabaan dagaalkaasi inuu ahaa mid khaldan oo aan ku habboonayn xilliga ayada ah ama ba aysan ahaynba inuu dhaco ayay dadka qaar qabaan. 2 kuwa kala aaminsan waa bilowgii jabkii qarannimadii Soomaaliyeed. dagaalkaasi 77 wuxuu ahaa halkii ay ka soo fuftay ama turaanturadii jabkii qarannimada Soomaaliyeed ayay dar kale aaminsan yihiin oo Soomaaliyeed.
saddex kuwa kale waxay qabaan dagaalkaasi inuu ahaa tijaabo lagu tijaabinayay awooddii iyo cududii ciidan ee qarankii Soomaaliyeed inuu ahaa tijaabo lagu tijaabinayay tijaabadaasi oo ay dabada ka riixayeen wadamadii markaasi midowga Sovieti iyo Mareykanka oo iyaguna u arkayay Soomaaliya inay ka soo socoto awood fara badan oo qabsan karayso geeska Afrika misna u gudbi karto wadamada Afrikaanka iyo Carabta iyadoo markaaba sanado ka hor Soomaaliya ay hanatay ama 1974 ay Soomaaliya haysay kursiga ugu sareeya ee midowga Afrika Soomaaliyana ay ahayd wadamada gardaadiya nabadda iyo xasiloonida Afrika iyo Aasiya waxa kale oo Soomaaliya hanatay inay noqoto wadamada u dooda xuquuqda dadka raadinayo gobonimo doonka waxay gacanta ku hayeen gobonimo raadinta wadamada Afrikaanka sida Zimbabwe iyo Zambia, South Africa, Namibia, Angola, Guinea-Bissau iyo kuwa badan waxa kale oo Soomaaliya iyadana ay hanatay oo markaa gacanta ku haysay in ay u doodo xuquuqda dadka Falastiiniyiinta ah oo dhulkooda la dhaco waxa Soomaaliya ka dhacay 4 ilaa 3 inta u dhaxaysay shirarkii ugu badnaa ee caalamka waxaana yimid mas'uuliyiinta ama madaxda ugu badneed ee dunida kuwii shuuciga ahaa iyo kuwii hantigoosidka ahaa ayaa yimid marka dawladahaasi tijaabinaya awoodda Soomaaliya wuxuu ahaa qodob ka mid ah haddaan ka sii gudbo waxa kale jira koox iyadana oranaysa waxa ku filnayd jamhadihii ka jiray Soomaali galbeed inay la dagaalamaan dawladii dargiga uu hogaaminayay Mengistu Haile Mariam ma ahayn in ciidan Soomaaliyeed loo diro qayb kala aaminsan wali waxaan ku jirnaa aaminsanaantii iyo fakar kala duwanaantii ay bulshada Soomaaliyeed qabtay waa ka sii soconaya koox kale ama qaar kale ayaan waxay leeyihiin waxa uu ahaa dagaalkaasi mid sax ah oo ku haboon oo aynu cadowga ugu diidna wadaaca iyo wid inagoo qalbiyadooda ku dheehnay ama ku qornay taariikh lama ilaawaan ah waa 1 iyo 2 iyo 3 iyo 4 iyo 5 iyo 6 lixda qodob horta ayaa doodu ay ka kooban tahay barnaamijkeennana waa qaybta ugu muhiimsan waa falanqayn iyo faaqidaad oo aan wali ku dhex jirno qodobadii kale wali ma aynan gudbin marka waxaan soo qaadanayaa darka qaba in uu dagaalkaasi ahaa mid gardarra ah ama mid qaldan waxaa jira marka dadyogan soo socda oo su'aal ka qaba kuwa ilka ama dalloonta ku jira oo su'aal qaba iyo kuwa nool oo naafa ah iyo kuwa nool oo xayi ah ayaa su'aal waxay ka qabaan iyaguna qodobka ah inuu qaldanaa waayahay waxaa jira marka kumanaan Soomaali ah oo u go'ay dalka iyo dadka iyo diinta iyagoo difaacaya kumanaankaasi marka waxay leeyihiin dadka aaminsan dagaalkaas waa qalad su'aashaasi ayay jawaab u doonayaan waxaa jira kumanaan hilbahoogii oo cidlada waraabo ku cunay waxaad maqasheen jabkii ahaa eriyayda iyo ka soo baxaydii oo aan soo wadno ma doon inaan ka hor dhaco oo qodobada dambe weeyaan ka soo baxaydii dhibaatooyin badan ayaa dhacay marka kumanaankaasi cidlada uu waraabaha hilbahoodu ku cunay iyaguna waxay su'aal ka doonayaan inay weydiiyaan qolada qabtay inuu gardarraha dagaalkaasi waxaa jira kumanaan jirdil iyo darxumo ugu dhintay xabsiyada dalka Itoobiya waxaa jira kumanaan ku curyaamay iyaduna jirdilkii loogu geystay inta ay maxabiista ku ahaayeen gudaha Itoobiya waxaa jira kumanaan soo gurya noqday maxabiisnimadooda soo dhamaystay oo yimid ooryahoogii oo la qabo xaasaskoogii oo la qabo ayay yimaadeen Soomaaliya waa kumanaan kale intaas oo kun oo qof oo dhibanayaal ah oo ku dhintay oo ku curyaamay oo ku ooryo waayay oo ku duunyo waayay waxay su'aal weydiinayaan dadka qaba dagaalkaasi inuu qaldanaa waayahay waxaa kaloo jira kumanaan tan iyo maalinka maanta ah rag iyo ruux waa halka ay dhigeen aan lahayn intaasi markaan aan ka imaado qodobkayga weli waxaan dul taaganahay falanqayn iyo faaqidaad wixii dal iyo dunyo ama dad iyo dunyaba rigaxmay iyo su'aalaha ka taagan waayahay waxaa jira goosgoosyo iyo waraysyo aan la yeeshay
waxaan ku bilaabayaa dhinaca dadkii Ethiopiaanka ah aan waraystay waxaan ku bilaabayaa kow magaalada loo yaqaan Nageyle magaalada la yiraahdo Nageeye maanta laakiin loo yaqaan Nageyle oo koonfur galbeed ee Ethiopia maanta dhacda Soomaaliduna ay wada taqaano laakiin maanta waxa loo bixiyay Nageyle Boorane oo qoomiyadda Oromo waliba jilibka Boorane ama Booran ayaa loogu magac daray Nageyle waxay ka mid tahay magaalooyinka jiidaha gobolka Bali gobolka Liyaado waan soo wada iyadana kama hordhacayo gobolkii Bali ee jiidaha dagaalada markii la galayay dadka Soomaaliyeed dhulkii ay ka galeen dagaalada ayay ku jirtaa waana magaalo aad u weyn oo camiran boqolkiiba 95 dadka degan waa dad Soomaaliyeed magaaladaasi ayaa waxaan kula kulmay nin qayska waxa la yiraahdaa baadariga kuwa yani diimaha u qaabilsan dadkan Ethiopiaanka ayay qays ugu yeeraan ninka baadariga waxaan kula kulmay hotel weyn oo uu leeyahay oday Soomaaliyeed oo bartamaha magaalada ku yaala waxa uu ahaa markaa hotelka waxa ka jiray shir ay lahaayeen dadka deegaanka marka shirkaas uu ka soo qayb galay aniga markaa waxa igu weynaatay ninkan macatabiyada sita oo shirka ka soo qayb galay marka nidaamka Ethiopia ka jira waxa weeyaan geeridu waa la soo wada yimaadaa dadka gaalada islaamka qofka geeriyooda waa loo yimaadaa shirarka markay dhacayaan waa la soo yimaadaa aroosida markay dhacayaan waa la soo yimaadaa waa nidaamyo laga dhaxlay hanaankii dargiga ama nidaamkii Hayle Salaase ilaa iyo Mengista Hayle Maryam su'aal ban marka weydiiyay ninkii macatabiyada sitay ee qayska ahaa su'aal waxaan ku weydiiyay ahayd muuqaalkiisa iyo hubqaadkiisa iyo macatabiyadan uu wato iyo Soomaalidan uu dhax fadhiyo iyo waxa uu ka aaminsan yahay dadka Soomaaliyeed marka wuxuu igu yiri dadka Soomaaliyeed waxaan ka aaminsan inay yihiin dad wadaniyiin oo dhulka iska leh laakiin waxa jira dagaalo aan dhamaanin oo soo socda buu yiri 900 oo sano ayaa jiray dagaaladaasina mar walba buu yiri marka aan runta ka hadalno waxa gacan sareeyay dadka Soomaaliyeed laakiin waxa jirta buu yiri in marar badan inagoona aan ka guuleysanay inagoo haysano taageero caalami ah marka waxaan weydiiyay haddii mar walba leedika guuleysanayay maynan cadeyn inaad idinku dalkan aad ku tihiin marti inaan lahayn oo dadkii wadanka lahaa ay goor walba idinka guuleysan yihiin maynan taa cadeen wuxuu yiri may marti maniin anaga dhulka anaga iska leh waxa kaloon ku cadeynayaa buu yiri in uu nabigiina wuxuu soo qaatay rasuulku soo qaatay Allahumma salli ala mubarak Allahumma salli ala sayyidina Muhammad khayrul khalqi la qaatmal anbiya wuxuu soo qaatay wuxuu rasuulkiina ayaa xataa wuxuu sheegay in wadankan uu yahay wadan barakaysan marka haddii aad mar walba naga guuleysataan haddana guushu mar walba inagu xagga dambaan ka helnaa doodaas marka waxay dood ina dhaxmartay aniga iyo nin baadari ah oo magaalada Nageyle waxa jira xaafad la yiraahdo Maganaya Haya Ulad oo Addis Ababa ku taala Maganaya waa doo weyn Haya Uladna waxa weeyaan waa wadada 22aad soo xiliga waxay yiraahdaan barabara kumina 22 barabara 22 kuwana waxay yiraahdaan Haya Ulad oo ah Maganaya Haya Ulad wadada dheer xaafada 22aad oo Soomaaliyeed inta badan ay garanayso xaafadaasi 22aad waxa ku yaala guriyo si gooni ah loo dhisay waxaana la dajiyay dadkii wax ku waxyeeloobay dagaalkii 77 inan Daawud la yiraahdo oo ahmaar ah oo aan isbaranay ayaan ka codsaday inuu xaafada ay geeyo maalmaha kamid ah xaafada marka dadka degan waa sida Soomaaliya meelaha qaarkood waxaan maleynayaa Muqdisho waxa jirta meel leedahay Bangaria oo ciidamada askar mise shirka ofishaale wax noocaas ah jiray magaalada Booramo kale waxa ku taala xaafad leedahay Xaasleyda oo ay ciidamadu deganayeen xaafadan marka ciidamada si gaar ah u degan dabadeedna ciidamadan meesha la dajiyay waa kuwii qaas ahaan dagaalkii 77kii ku waxyeelooba ama ku dhintay awlaadoodii iyo ooryahoogii baa degan ninkii Daawud ah xurur fuula cararay meeshii uu geeyay dhalinyaro marka meesha joogta dhammaan waa dad wada wada neefis oo wada xanaaqi oo wada dagaal badan oo dadka kale xabashida waa dad qabow oo dagaalamin laakiin qoladani waa qolo ka duwan adduunkana waxay arkaan wax ugu dhacay qof Soomaali ah sanadihii ugu horeeyay ee 1992 intii Ethiopia isbedelin waxa jira dagaalo badan oo Soomaalida deganeed Maganaya Shola ilaa Piazza lagu soo qaaday ilaa Saris dadka ugu badnaa dagaalada ku soo qaadayna waxay dhalinyaradaasi ka soo jeeda dadkii aabiyasho dagaalkaasi ku dhamaadeen sheekadu murtideeda waxay tahay ninkii odayga ah dhalinyaradii uu geeyay su'aalaha markayna dhaxmaray waxaan ku yiri waxa la ii sheegay inaad tihiin dadkii aabiyashood ku wax weeloobeen
dagaalkii 77ka anna waxaan ahay Soomaali waxaan ka socdaa dadkii dadkooga ay ku dhamaadeen suurtagal ma tahay inaan ka wada hadalno wixii markaa dhacay inamadii waa qaarkood dhiiga ku karay qaarkood waxa weeyaan way soo dhaweeyeen laakiin inanka la socday Daawud wuxuu ahaa nin aad u degan oo ah qolyahan mataqaanaa bouncer kaliya ama bootaforiga ee hoteelada ka shaqeeya xooga badan leh wuxuu ugu talagalay haday dagaal wax isku dayaan inuu mar walba difaaco dabadeedna dood dheer baana dhaxmartay doodiina dhaxmartay waxay ahayd waxay yiraahdeen inagu haddaan nahay dadkaasi iyo guud ahaan Ethiopia waxaana lagu canqariyay oo lagu barbaariyay dhibaato kasta oo dhacda qof kasta oo ka dhinta Ethiopia haddii Ethiopia laba sibe dadka u dhintaan marka inta badan laga hadlayo waxa weeye birdi matal oo qabow baa dilay ama Soomaali baa dilay Soomaaliya geedela waxay yiraahdeen inaga qof kasta oo Ethiopia ka dhinta ama uu qabow dilo ama uu gaari dilo ama uu dameer haraatiyo waxaan naloo baray oo naloogu sheegay inuu Soomaali dilay waxa kaloo naloo sheegay oo naloo baray oo diiwaanka noogu jirta markastoo abaari dhacdo Ethiopia abaari ka dhacdo oo masiibo ka dhacdo oo dadku waxay cunaan la waayo inay sal ku hayso dagaalkii 77 oo ay Soomaali dagaalkan ugu soo qaatay doodaas ayna dhaxmartay waxaa jira saddexaad oo ku soo afmeeraya doodihii dadka Ethiopia kana dhaxmaray sarkaal aan kula kulmay xaafadda Piazza hotel yada Arosa oo Soomaaliya inta badan ay wada yaqaanaan Arosa wuxuu ku yaalaa Piazza oo magaalada waqooyigeeda ah sarkaalkani waxa uu watay hubqaadkiisii ama dareeskii ciidanka Ethiopia markii ay nimankii wayaanaha la wareegeen ciidamadii dargiga waxa lagu sameeyay taariikh aad u foolxun waxa lagu sameeyay saraakiishi iyagoo wato garaadahoogi iyo biladahoogi ayaa howlgab laga dhigay dabadeedna dharkii lagama qaadin dabadeedna waxa loo fasaxay inay gidaarada dawarsadaan magaalada Addis Ababa ninkii arkay baa arkay ciidamadu waxay sameeyeen intay horin u fariistaan ayaa waxay ku dawarsadaan wax qabadkoogii iyagoo waraaqado ku soo qorta waxaan ahaa sarkaal Hiblaayo waxaan ka dagaalamay 77kii waxaan jabiyay intaas oo Soomaaliyeed waxaan ahaa ciidamadii harar fadhiday waxaan ka mid ahaa mid baa oranay ku goday waxaan joogay gobolka Baali ayaa ku qoran biladihii bay wataan daraadadii baa u xiran gidaaradaas ay fadhiyaan anigu marka shakhsiyan biladaha waan ka iibsan jiray marka la ka sheekeyn doonaa sababahan biladaha uga iibsaday iyo halkan geeyay sarkaalkaasi marka waxaan kula kulmay Arosa Hotel oo Piazza ku yaala dabadeedna waxaan ka wareystay maadaama uu ahaa ciidankaasi wixii uu dharkiisina uu wataa waa nin diihaalaysan oo dhibaataysan waxaa jira wax la yiraahdo bun iyo shaah baa hoteelada laga cabaa meelaha pastry-ga ama cafeteria-sha bun iyo waxaas laga cabaa koob bun inta leeg baan u soo qaaday waxaan ku yiri waxaan ahay Soomaali waxaan ka soo jeedaa magaalada leedahay Awbare gobolka Jigjiga waxaan doonayaa inaan ka wareysto wixii aad u soo joogtay wuxuu yiri waan aqaan dhulkaasi in badan waan ka soo shaqeeyay hal su'aal baan weydiiyay ninkii halkii su'aal weydiiyay asagoo ilmeynayo ooyaya ayaa ka tagay waxaan ku yiri dagaalkaasi intee Ethiopian ah ayaa ku dhimatay oo adiga aad garanaysaa oo xaafadaada iyo classmate-kaagi iyo isku horin aad ahaydeen ayaan weydiiyay su'aashaas kaliya weydiinay ninkii lilmo ayaa ku soo joogsatay waxaan islaahay uu gagsan doonaa uu ku warami doonaa weyneeyo bilaabayba mar hadduu qofka Ethiopianka weyneeyo bilaabana waa soo noqosho male oo hintuu bilaabay jaarkii baa dhagax soo yiri anna waxaan ka baqay in wax kale la qabsado sidii baan door xulay intaas waxaan ugu soo golleeyahay dagaalka 77kii barnaamijkeena ma xambaarsana nagamana ah inaan soo qufno oo tumo iyo xasarado iyo dhibaatooyin dhacay oo labada wadan ay ka gudbeen laakiin waxa weeyaan wuxuu barnaamijkeena ku qotamaa in aynu fahanno xaaladaha maanta aynu ku sugannahay iyo dhibaatooyinka ina haysta iyo ismariwaaga iyo jamhadaha iyo hantigoosanimada iyo maamulada nin walba dhinac wax u wiiqday halka ay salka ku hayso dadka Soomaaliyeed sida ay isaga riixeen guulahoogi waayo adduunyadu qofka aad haysaan ama cadowgaaga inuu guusha ka xasdo waa wax jira laakiin adiga libintaada inaad isu diido waa waxaan caalamka ka dhicin dadka Soomaaliyeed markaa waxay maanta u kala fadhiyaan inay libintoodii iska xasidaan oo libintoodii jar ka ridaan oo ay waxyaabo aan jirin oo malawaala dhalinyaradooda ku huuhaa ka buuxiyaan
oo nin walba sida uu jecel yahay ama qabiilkiisu jecel yahay ama uu jeclaa uu doonayo inuu bulshada ugu soo bandhigo qodobka markaa falanqayn iyo faaqidaad oo barnaamijkeena ugu magac darnay dagaalkii 77kii ma gar buu ahaa mise gardarro ayaan barnaamijkeena qaybtiisa hore kusoo afmeeraynaa qaybaha dambe awoodihii ishardiyey iyo waddamadii ka qayb galay maxsuulka wixii ka soo baxay iyo dagaalkaasi saameyntuu yeeshay maxaa laga dhaxlay maxaasoo ka baranay waxaanu ku martiqaadi doonaa saraakiil soomaaliyeed oo qaarkood saa horu sheegay waddan gudihiisa jooga qaarna dibadda jooga waxaad markaa nagala socotaan mar walba airo t v oo aan idinkaga soo tabino barnaamijyo aanu isleenahay waa wax ku ool oo dadkana wax badan ayay u qaban doontaa waxaa kaloo aan doonaynaa inaan idinka codsanno ciddii tala iyo tusaale hayso kuna saabsan barnaamijkaasi iyo waxa uu ku qotomo inay nagu soo hagaajiyeen airo@gmail.com haddii aad doonaysid inaad ama aad jeceshahay inaad qayb ka noqoto barnaamijkan qoraal iyo hadal iyo dhegaysiba fadlan emailkaas inoogu soo gudbi intaa ayaan kusoo afmeerayaa barnaamijkeenii koobnaa inoogu magac darnay guuldarrooyinka taariikheed qaybtii afaraad xubinteenna maanta aan ugu magac darnay iyaduna dagaalkii 77kii ma guul buu ahaa mise guul darro hadduu ilaa yidhaahdo waxaan kaga tegayaa naftii hore nabarada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage naacaw qabowiyo nimcayo barwaaqiyo sabad lagu nagaadiyo noloshaba iloobe nacasoo gumaysigan nabarada qarsooniyo macaniga hadhayniyo igu reebay naafada nabad lama wadaage nidarbaan horow galay niyadaydu waa meel nidarbaan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allaayo ku nabadgeli nidarbaan horow galay niyadaydu waa meel nidarbaan horow galay niyadaydu waa meel haddii aanan soo noqon calankayga nuuro allaayo ku nabadgeli allah u naxariisto halgamaa ama naftii hore cabdi kaamil xawaale ayuu ahaa oo heesta aad maqlaysaan ee calankayga nuurow allah iyo ku nabadgeli dad badan oo soomaaliyeed ayaa calankan dhinacayga yaalla u go'ay iyagoo tawxiidka yacni markii loo qabanayay calankaa ku wada degan ama wada huban ayay naftu ka baxday sidaasaana lagu wada aasay qaybaha dambe barnaamijkeena ayaynu kaga hadli doonaa aadan jaamac kaahin xildhibaan sare aad baan kuu salaamaya mudane dhammaantiin waxaan idin leeyahay waad mahadsantihiin xuseen cali diiriye aad baan kaaga qaada walaalo barnaamijkaa mid lamid intaan ku kulmayno waa anigoo suxfa abroona idin leh السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.